ciyaar saaka waa berigii ka dhacday garoonka Alenje ayaa halkaas waxaa isku arkay xulalka Brazil iyo Uruguay. Brazil rigorooyin ayaa looga badiyay waana ay u soo bixi weyday wareegga afardhamaadka ee semifinalka tartanka Copa America ee ka socda dalka Mareykanka. Xulka Uruguay ayaa intii uu ku guda jiray marka la eego xagga socdaalka ee gruubyada waxba ay dhaliyeen 9 gool waxaana uu noqday xulka ugu goolasha badan marka la eego wareegga tartanka. Waxa laga dhaliyay 1 gool oo kaliya. Xulkan Uruguay ayaa rikoorkan waxa ay la wadaagaan dhigooda Argentina oo iyaguna iska xaadiriyay ciyaaraha semifinalka oo ah xulka ugu badan ee Copa America. min 15 jeer ay ku guuleysteen Argentina iyo Uruguay. markaan eegno Uruguay ka hor inta aysan ka badin saaka waa berigii Brazil waxa ay horay dhinaca gruubyada ay u dhigtay 10-3 ay kaga adkaatay Panama ciyaartii bilowgii ay gruubyada ciyaartay. sidoo kale 5 ay ku garaacday eber xulka Bolivia kulankii labaad ee xagga wareegyada kadibna waxay xajisatay rikoorkeedii saxda ah markii 1 eber ay kaga badisay xulka Mareykanka. haddaba Uruguay ayaa hadda waxay rajeynayaan in ay markaasi koobka Copa America ay ku guuleystaan iyadoo aysan ku guuleysan tan iyo sanadkii 2011 markaas oo koobkan lagu qabtay dalka Argentina. laakiin Brazil ay hadda ka badiyeen semifinalka ay iskeeneen Colombia ay iswajihi doonaan. Brazil markaan eegno iyagu dhinaca gruubyada marka la fiiriyo rajo fiican lagama soo sheegin oo waayo Brazil bugbixi tartanka 9 jeer ay ku guuleysatay horta koobkan waxa ugu dambeeyay markii 8-damaadka tartankan ay timid 3 jeer oo xiriir ah. Brazil ayaa xagga safarka group D ay ku jirtay bilowgii barbardhac eber ay la gashay Costa Rica kadibna 4-1 ay kaga badisay Paraguay ciyaartii labaad ee xagga gruubyada. laakiin mar kale ayaa dabin loo dhigay oo 1-1 ay la galeen Colombia oo iyadu hadda timid marka la eego dhinaca semifinalka. waxay urursatay kaalinta labaad ay ku soo baxday 5 dhibcood Brazil marka waa laga badiyay marka la eego group A. haddaba tartankan waxa ugu dambeeyay Brazil 2021 waxay rajeynaysay in ay sanadkan ku guuleysato koobkeedii 10aad laakiin ma noqon oo waxa markaas ka ciribtiray Uruguay. haddaba Colombia iyo xulka Uruguay ayaa semifinalka ama wareegga afardhamaadka kulmi doona. sidoo kale waxaa soo baxay xulka Argentina oo ah xulka ugu badan ee koobkan ku guuleystay. waxa ay sarki doonaan xulka Canada ciyaaraha semifinalka ee Copa America.